أويو إسكدا دريقيو دوسي لوصمي هياليه لودين أويو إسويل كضيعا دوسي سرادة مجتا كدل ملايا دادي أويو إسكدا دريقيو دوسي لوصمي magaalada Boorama waxa maanta laga xusay 18 May oo ah maalintii magaalada Burco lagaga dhawaaqay gooni isku taaga Jamhuuriyadda Soomaaliland 1991 taasoo ay ka soo wareegtay muddo 12 sano ah waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Soomaaliland waxaana si ku celcelinah looga hadlay xuskan maanta qiimaha nabadgelyada iyo kala dambeynta ay leedahay xuskan oo lagu qabtay fagaaraha khayriidda magaalada Boorama ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirada dib u dejinta wasiirka wasaaradda beeraha wasiirka cadaaladda wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta maamulka gobolka Awdal maamulka degmada Boorama madaxda dhaqanka ee ku sugan magaalada Boorama iyo shaqaalaha laamaha dawladda ee kala duwan iyo xildhibaan iyo dadweynaha ku nool magaalada Boorama qaarkood xuskan 12aad ee gooni isku taaga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hadal ka jeediyay madax fara badan oo isugu jira heer gobol degmo iyo madax dhaqameed fara badan kuwaas oo dhamaantood istul taagay qiimaha nabadgelyada iyo adkeynta nabadda Soomaaliland noolaato maxaa dhacay lama hadalo Soomaaliland noolaato haddaba waxaan leeyahay oon ugu baaqayaa shacbiga reer Soomaaliland nabadgelyada inaynu adkaysano nabadgelyadana waa inaan adkaysanaa cadow fara badan baan leenahay meel walba waa inaan soo weerarayaa waa inaan isku tashanaa diyaar ma utiin nabadgelyada inaan ilaashano sidaasaan lagu jawaabinayaa marxaladii maalintii dhawaad ka dhacday caasimada magaalada Hargeysa waxaan leeyahay ciidanka qaranka ha la ilaaliyo shicibka amniga ha ilaaliyo aad baan disraaya in la isku hambalyeeyo maalintan qiimaha badan leh ee aynu u dabaaldegayno maalintii aynu isku afgarannay gobolladeenii waqooyi ee Soomaalidii hore ka tirsanaa inaynu gooni isku taagno oo aynu iskeenu go'aansannay oo aan ahayn wax lagu qasbay Ilaahay inaan isku hambalyeeyno waxaan ahayn oo maanta inoo bannaani ma jirto askarta waxaan ka codsanaynaa dadka inay isdhowraan dadka iyaan ka codsanaynaa askarta muxubbay la soo baxeen hal isdhowro walaalayaal 18 mayna waa tii aan isla ogeyn si ay noqotayba tii aan isla ogeyn weeyi tii aanu gacanteeda ku samaynay weeyaan inkastoo dhaawacyo ku yaallaan taa markaan u baydho gumaystuhu dhulkuu kala gatay in layna gaadhsiinin ee geesiyaashii ka kacay gawrac lagu laayey geeska Afrika oo kale markaan gacan togaalayay meelan gantaalaha culculus lagu garaacaynin ama geedaad hoos joogsatoon meydku garaboolin geyigeennan mooye lawaa gacan la yaalo ee warray nabadda waa lagu gamaayay yaan la garan waayin waxaa Soomaaliland waxay ku caalamaashay nabadda waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliland bari ilaa galbeed hal la ilaashado nabadgelyadu waa shay qaali ah xubnaha wasiirada ay uga yimid Hargeysa inay ka qayb galaan xuska 18 May ee ka dhacay fagaaraha khayriidda ee magaalada Boorama oo dadweynihii ka soo qayb galay xuskan hadal u jeediyay ayaa waxa ka mid ahaa nuxurka khudbadahooda ay jeediyeen khudbada ka hadlaya muddada ay dhisnayd Soomaaliland iyo waxyaabaha u qabsoomay iyo adkeynta nabadgelyada qof kasta oo ka kacay nabadgelyada u qaaday oo maanta 18 May aan kaga faa'iideysanayo أنا أقول لك حافظوا البكاكيكا يتوحدوا اسكولاوش انت قالوا يا حين بدرسوا الشطة لما تقليدي إذا عاد الله تكسبوا مدعونا جمهورية السومال عنه وراضو مدعونا كريقة جمهورية السومال عنه وراضو سوماليلاند gobolka horta waddanka Soomaaliland la yiraahdaa qaybo badan ayaa wali laga maqan wasaad ogtiin qaybihii bariga oo dhan ama gobolka Sool la yiraahdo qaybo badan ayaa ka maqan xukuumadda siyaasadeeda ayay tahay in goobahaasina ay soo galaan maamulkeena la gaarsiiyo xukuumadda ayay ka mid tahay siyaasadeedu waxaan leeyahay gobolada barigana waxaan leeyahay waa ku soo dhawaada walaalihiin waa ku soo dhawaada nabadda horumar laguma gaaro meel aan nabadgelyo ahayn shirkii boorama markuu halka ka socday 1999 waan joogay halkan aan goobjoog ka ah waayona
jidadka iyo daaraha dhaadheer ee maanta inooga samaysan dhammaan magaalooyinkeenna hadday boorama tahay hadday burca tahay hadday hargeysa tahay hadday berbera tahay midnama jirin maalintaa laamiyada dalka inooga samaysan midnama jirin maalintaa waxaanu ugu mahadnaqaynaa ilaaha nabadgelyada ina siiyey ayaynu ugu mahadnaqaynaa waa maalin maanta waddanka somalilan oo dhan looga dabaaldegayo meel kastoo la joogo waa waxa weeyaan 18 May waa halkii dhibka loogu aasay halkanay ahayd waa waxaan innagu waa ina dabaaldegii ama sanadkii 12aad ayaan maanta u dabaaldegaynaa waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee uga soo qayb gasheen si kastaba ahaatee xuska 18 May ee maanta lagu qabtay magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal oo ahaa mid si weyn looga hadlay adkeynta nabadgelyada ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ay iskaga hor yimaadeen dad shicib oo hubaysan iyo ciidamada Soomaaliland isla markaana maxkamad militari ay xukun ku riday dad shicib ah oo lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen shaqaqadaasi maalmahan ka dhacaysay magaalada Hargeysa taasoo nuxurka nabadda lagaga hadlayay sanad guurada 12aad ee ka soo wareegtay goon isku taagga Soomaaliland ay salka ku haysay dhacdadaasi ku cusub Soomaaliland ee ka dhacday magaalada Hargeysa Haashim Sheekh Cumar Good Somalisat TV Boorama